waxaa jira magacyo eray bixineed oo la isticmaalo micnana ku fadhiya iyo kuwa dhacda ku baxay sidaa darteed waxaan isku dayayaa in aan soo qaato qaar ka mid ah baydhabo iyo buur hakabo oo hore loogu aqoon jiray baay iyo buur yaa bixiyey munaasabad caynkee ah ayayse ku baxeen sida ummadaha adduunka oo dhan ay wada og yihiin ummad waliba waxa ay leedahay dhaqan hiddo iyo maamul ay hoos tagaan sida boqortooyo ugaas malaaq suldaan hadba sidaad u taqaano sidaas oo kale ummadda Soomaaliyeed waxa ay leedahay taariikh soo jireen ah oo aad u fac weyn sida xoolo dhaqashada beer falashada difaaca diinta islaamka oo ay hogaaminayeen Sheekh Xasan Barsame Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan Axmed Gure iyo rag kale oo ummadan magac weyn ku dhexleh waxa kale oo dhinaca koonfurta iyo koonfur galbeed ka jiray boqortooyooyin sida Tiib iyo Maal Geladi Eelay Gasaar Gude iyo kuwa kale haddii aan soo qaadano boqortooyadii Eelay waxa ay xukumi jirtay inta u dhaxaysa labada wabi saldhigeeduna waxa uu ahaa halka maanta loo yaqaano buur hakaba oo hore loogu aqoon jiray buur dadka halkaas ku nool waxa ay leeyihiin dhaqan iyo caado soo jireen ah sida ciyaaraha oo ay caan ku yihiin labiska habka dhalinyaradu ay timaha u fidhan jireen iyo suugaan macaan oo la qaado marka beeraha la falayo la goynayo xoolaha la waraabinayo ama la daaqaynayo iyo marka gabdhuhu xaskusha meydhaxda iyo cawska inta ay wiilasha israacaan oo toddobaad ku maqnaadaan ayna maansooyin isku tiriyaan safarkaasna waxaa loo yaqaanay aroob boqortooyadii Eelay sida aan hore ku soo sheegnay boqortooyadaas caasimadeedu waxa ay ahayd buur boqorkuna iyada ayuu fadhiyi jiray waxaana boqorka lagu magacaabi jiray Geedi Baabow waxaana hoos imaan jiray abaandulayaashiisii kala ahaa Fale Aarow Eese Baarow iyo Dubkaa Baalow boqortooyadaas dadkeedu waxay isugu jireen beero falato iyo xoolo dhaqato sida ay xaqiijiyeen odayaal fac weyn oo aan waraysay ma jiro dhul deegaanka ah oo aysan bixin boqortooyadaasi oo ay degto bahweynta Mirifle ama 8 iyo 9 maantadan aan joogno ilaa xilligii ay jirtay boqortooyadaas marka uu qof ka mid ah beeshaasi uu u baahdo dhul uu beerto oo uu tabcado waxa uu u tagi jiray odayaasha beeshiisa bulshadaasi marka dhul beereed loo cabirayo ma aysan isticmaali jirin cabirada tacab iyo hektar midna waxayna cabir u isticmaali jireen suuradaha quraanka markaas ayaa la weydiin jiray dhulka uu rabo iyo meesha uu ku yaalo iyo cabirkiisa waxaana loo yeedhi jiray wadaad xaafidul quraana waxaana uu sheegi jiray in dhulka cabirkiisa uu yahay 4 yaasin oo dherer ah iyo 2 yaasin iyo 2 tabaarag oo ballaca buur hakaba iyo baydhabo sida la xaqiijiyay markii ugu horeysay waxa boqortooyadaas ka hor yimid qabiilka loo yaqaano Geladle oo boqortooyadaas ka tirsanayay cadaalad darro iyo tacaddi ay boqortooyadaasi u geysatay inkastoo la isku dayay in la xaliyo nasiib darrose waxa ay tahay in lagu guuldarraysay waxaana dhacay dagaallo lagu hoobtay oo naf iyo maal badan galaaftay beesha Geladle waxaa dagaalka ka soo gaaray jab aad iyo aad u weyn waxayna beeshu u kala jabtay 2 qaybood oo kala ah Gado iyo Boqol muddo dheer kadib waxaa mar kale maamulkii boqortooyadii Eelay ka hor yimid beesha Laysaan oo saldhig weyn ka samaysatay baay oo hadda loo yaqaano Baydhabo boqortooyadii markii uu warka dhilada xambaarsan soo gaaray oo ah in Laysaan isku urursanayo Baydhabo duulaana ay ku yihiin buur ayaa abaanduulihii boqortooyadii soo saaray ciidan aad u daddiisu weyn tahay markii la gaaray nus dariiqa ama kala badhka baay iyo buur ayaa uu abaanduulihii boqortooyadu shakiyay oo waxa uu ka baqay in Geladle is urursado oo uu la heshiiyo Laysaan sidaasna uu dhabarjabin ku sameeyo ciidanka boqortooyada halkaasna uu jab weyn ka soo gaaro ama uu qabsado saldhigga isaga oo ka argoosanaya boqortooyadii Eelay abaanduulihii ayaa ciidanka inta uu laba u qaybiyay oo dhexdooda istaagay taliyaalna u magacaabay ayaa uu amray dagaalka isaga oo lahjada meeda kula hadlayna waxa uu yiri isin Baydhawa isina buur hakaba oo macnaheedu yahay idinku bay ciidanka jooga laaya idina ciidanka buur xoojiya yaalna inoo daba marinee waana sidaas ay ku bixeen magacyada Baydhaba iyo buur hakaba mana jirin ujeedo kale oo ay ku bixeen magacyadaasi sida la xaqiijiyay